السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal Ramadaan Kariim meel walba aad joogtaan. Ina Maryam maanta waxaynu aadaynaa halka iyo meel yiraahdo Makka Mukarrama. Halka aad maalin walba cumrada aad u aadaan ama aad xajka u aadaan. Maalmaha kamid ah waxay ahayd caasimadda shirkiga ayay ahayd. Intaan aysan imaanin risaaladan Ilaahay u maartay ugu maneystay islaamnimada. Haddaba saaxiibayaal magaalada ayada xilligii nabigu sallallahu alayhi wasallam oo dadka dacwada ugu bandhigayay markaad fiiriso dhibaatadii ay muslimiintu ay la kulmayeen musiibooyin aad u daran ay muslimiintu la kulmi jireen sanadkii 10aad ee bicada waxay ahayd sanadkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ugu adkaa magaalada Makka ku soo mara sababtoo ah waxa ahayd sanad uu waayay dadka midkii u maartay ugu dhawaa dadkii aad waxtarka u lahaa nabi sallallahu alayhi wasallam difaaci jiray sanadkan nabi sallallahu alayhi wasallam 10aad ee bicada waxa uu waayay mid kamida garbihii ugu weynaa ee uu lahaa mid kamida libaaxyadii difaaci jiray dacwadan waa adeerkii Abu Talib nasiib xumo Abu Talib راعين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولي مدي لكن وحوها مد مركز تبع دفاع دعوة أو عرب يقراش أنت ذي كلام قاشانك ودرورة أو يراد ويلك ولا كي والله عدي أكتيس سومري كري سنة كي طبانات وجيريودي إسلا سنة داسي واحد جيريودي حاس كي النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها أيانا جيريوتي النبي قلنا أيا ولم جيريدي وحنا المسلمين تو أبحيان سنة داسي سنة دي مرقدة عام الحزن سنة كي مرقدة أيا المسلمين تو أبحيان ما دام مرقدة سي أي مسلمين النبي بقى يسر عضيو جيريدي أبو طالب وأذيركي وآنين كده معايا الدفاع يدعوة يحسكي سقالي أهد ونرد شاعرورتي سلمان مركز لغا ريبو قاسم هذا صاحب بيال أنت وحي كدن بين النبي صلى الله عليه وسلم وحا بالله inuu naftiisa u bandhigayo qabaa'ilka carbeed si ay maartay ay u rumeeyaan garabna ay u siiyaan cadawgana ay ugu difaacaan si uu risaaladiisa u guto oo dadkii u gaarsiiyo hadaba saaxiibayaal nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa magaalada Makka wadooyinka soo gala oo miyiga ka imanaya kii istaaga oo qabaa'ilka carbeed oo magaalada soo galaya oo xajka imanaya kii naftiisa u bandhiga ayaa u ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana la socon jiray Abu Bakar iyo Ali waxaad ka warqabtaa ninkii shaydaanka ahaa adeerkii ahaa Abu Lahab inuu daba socon jiray ee nabigu markuu dadka la kulmo oo dacwadiisa u bandhigayna uu oran jiray warmaya dadow aniga adeerkii ah oo dadka ugu dhow ninkanina ma aha waxa uu sheegay waa beenaale ka digtoonaado ka carara ay u dhigi jiray ninkii Abu Lahab ahaa naarta Allah ku fogeeyay hadaba saaxiibayaal nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadka isku bandhigaba waxa uu maalintii daba la kulmay 6 qof oo ka yimid magaalada Madiina waaga hore la oran jiray Yathrib waxa uu ku yiri xagee baad ka timaadeen waxana ay ku yiraahdeen waxaanu ka nimid Madiina waxana nahay reer Madiina waxana ku yiraahdeen waxaan nahay Khazraj sababtoo ah 6duba waxay ahaayeen qabiilkii la oranayay Khazraj ee magaalada Madiina wax ka degayay ayaga iyo Awsba asal halna ka soo jeeday dhulka Yemen hadaba saaxiibayaal nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri nimankii yahuud ay gacan saarka lahaayeen baa tihiin deedna waxay yiraahdeen ha ayagii ayaa nahay kadibna waxa uu u bandhigay dacwadii waxaana uu ku yiri ka waram hadaad fadhiisantaan oo aan idin sheekeeyo arintan dacwada aan wado aan kaga sheekeeyo deedna way aqbaleen dacwadii ayaan u bandhigay subhanallahi isla markiiba nimankii ayaga ilaahay ayaa qulubtooda ku saraxay diinta islaamka waana ay qaateen waxaana ay yiraahdeen rasuulkii Allah anagu waan ku rumaynay waxaan u laabanaynaa reer tolkayo dacwadaada ayaan u bandhigaynaa halkaas rag baan kaga soo tagnay iskhilaafsan ogow Aws iyo Khazraj mardhow ayaa isdilayeen oo dagaalkii Bucaad waxa weeye 5 sano ka hor xilliga markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dacwada ugu yeerayo ayaa nimankani birta iska asleen oo dagaal weyn oo dagaalkii Bucaad taariikhdu ay u taqaano ayaa labadan qoys dhexmaray Aws iyo Khazraj marka waxay yiraahdeen gadaal waxaanu kaga soo tagnay dad aad u sunnacab oo hadana walaala haddii aan arintaada ugu yeelno deedna ay ku rumeeyaan ay ku raacaan wallahi inaan nin carbeed oo ka sharaf badan ka xoog badan oo sajirin marka waynu laabanaynaa waxa weey halkaas baanu tagnay dacwadana waanu faafinaynaa saxaabada waxay ka sheekeeyeen waxyaabihii ka saaciday inay isla markiiba risaalada qaataan maadaama reer Madiina ahaayeen Madiina waxa kula noolaa sidaad ka warqabtaan bahorana aan uga soo sheekeynay qabaa'il yahuud oo waxa weeye ka tirsan nimankan maanta adduunka qaribaya Israa'iil halka diga oo Netanyahu oo madaxda u yahay hadaba saaxiibayaal waxay yiraahdeen markaanu wax isku qabsano annaga iyo qolada Madiina nala degtay yahuuda ama mid ayaga kamid iyo mid annaga kamid oo ay isdagaalaan waxay ahaayeen kuwa yiraahda war mar dhow ayaa waxa soo baxayo nabi wallahi markaas nabiga astaan raacno ayaanu tii xumeed idinku dhigaynaa baaba ayaanu idin daaraynaa mid adinkeeda kamidana ma badbaadayo ay dhigi jireen mar walba oo wax isku qabsanaba nabiga bay waxa weeye noo soo qaataan markaas waxaan niri markii aanu aragnay rasuulka Allah oo dacwadii magaalada Makka la joogo annaga diintu nagu yeeri ayaan dhaxdeena waxaan isku niri wariyaahay waa kana nabigii ay yahuud mar walba idinku booteen jirtay wallahi yeesan idinkaga hormaray markaas aanu dhamaantayo dacwadii qaadanay oo aanu islaamnay waxaana yiraahdeen waxa ay kamid ahayd arintaasi sababihii naga saaciday inaanu xaqaba garanno oo aanu raacno laga yaabay hadaan yahuudiba aanay sida ku oran lahayn oo mar walba aanay nabiga iyo warkiisa aan uga sheekay lahayn inay si nimankan ay diinta qaadan lahayn ayaa laga yaabaa hadaba saaxiibayaal nimankii 6da ayaa reer Ansaar ama reer Madiina oo reer Khazrajka ahaa dacwadii way qaateen waxaana ay ku laabteen magaaladii Madiina ogow carabi waxa ahayd mid xajisa oo xajku wuxuu kamid ahaa diinta Ibraahimiyada oo carabtu badankood ay haysatay ayaa uu kamid ahaa waxyaabahan xajka iyo way sameey jireen oo way xaji jireen hadaba saaxiibayaal halka ay ka laabteen nimankii waxay tageen magaalada Madiina deedna dadkii Madiina ayaa uga sheekeeyeen waxyaabaha ay soo arkeen iyo nabigii nimankan yahuudi mar walba ay ugu bootan jirtay inuu mar dhow soo baxayo ay raaci doonaan deedna ay
nabiga ayagoo la socda ay reer Madiina iyo nimankan Khasraji Aws ay dili doonaan nabigii inay soo arkeen dadkii way sheekeeyeen diinta macaanta quraanka uu akhrinayo dadkeena in badan oo kamid ah ayaa raacday oo diinta islaamka qaadatay hadaba saaxiibayaal sanad ay nimankan imanayaan waxay ahayd sanadkii 11aad ee bicsada laga soo bilaabo markii nabiga sallallahu alayhi wasallam la soo diray sanadii 12aad ayaa mar kale ay soo laabteen nimankii 6 ahaa ayagoo 12 nin markaan tiradoodu ay tahay oo 6 kale ayaa ku soo biirtay markan kuwa Awsi ay ku jiraan hadaba saaxiibayaal mar kale ayay rasuulka kula kulmeen halkaasi waxa weeye ayagoo 12 halkaasi ayaana waxa lagu galay waxa loo yaqaano bay'atul aqaba al-ula bay'adii koobaad taariikhiyanadu ay u yaqaanaan bay'atul aqaba al-ula bay'adii aqaba ka dhacday ee koobaad halkaasi ayaa ka dhacday waxana ay ahayd bay'adaasi saxaabadii ayaa ka sheekeysay oo ka qayb galay gaar ahaan ninka la yiraahdo Ubaada ibn Saamit ayaa ka sheekeeyay wuxuu yiri rasuulka Allah ayaan la kulanay waxana galnay oo naga qaaday bay'ada loo yaqaano bay'atun nisaa bay'adii dumarka إلهي وكان كغشاكين سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم بيعنا سيقول له يقانا بيعة النساء هذا بس حابب نروح ليه هاي رسولك الله أيام وحنا لقلنا بيعة العقبة الأولى هذه كوبات وحوي بيعة النساء أيام ونقع هذا إن أنا شرك الصمينين وإلهي أنا وحكى لعب بدين إن أنا وحبح هذا نتوجا أنا نقنين إن أنا زينيسن إن أنا وحوي بين أمور أنا لا إيمانين بيعة النساء أتقرن إنسان القرآن إلهي كجور رمي أي رسولك نقع هذا أيام وليه هاي ماشي صيدا أنت كدب وحي الله بتن magaaladii Madiina ayaa ay u laabteen markan ayadoo beecadaasi laga qaaday hadaba saaxiibayaal nimankani markan laga ma qaadin beecada adag ee laga qaadi doono waxa weeye marka soo socota sababtoo waxa la dhisayay shakhsiga muslimka ayaa la dhisay oo shakhsi ahaan ayaa loo dhisay dadkan muslimiinta way laabteen magaaladii Madiina ayaa ay tageen halkaasi ayaanay dacwada ay ka fidiyeen xusiiso yaana ka hilmaamin maxaan wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo ku daray markuu beecada ka qaaday kadib saxaabi ahaa marka ayada saxaabadii ugu cilmiga badneed saxaabigan waxa la yiraahdaa Mus'ab ibn Umayr waa nin saxaabiya oo cajiiba oo ragii ugu horeeyay islaamka kamida oo Qurayshiya oo reer Bani Abdidaar ka soo jeedo ayaa u soo banuu ku daray waxana ay culimadu u yaqaanaan ama taariikhyahanadu safiirkii ugu horeeyay ee muslimiintu ay yeeshaan magaalada Makka ka baxa halka ay Madiina taga saxaabigani markuu halkaas tagay As'ad ibn Suraara ayuu gurigiisa ku degay As'ad baa soo dhaweeyay deedna As'ad ayaa kala qayb qaatay inuu magaalada Madiino dhan ku wareejiyo xaafad iyo guri uu u geeyo reer Madiino halkaasi ayaanay magaalada Madiina dhammaan inta ugu badan ay ku islaameen waxana ay waxa weeye ku islaameen gacanta As'ad ibn Suraara iyo Mus'ab ibn Umayr ila ay islaameen waasidii waaweynaa ee reer Aws ninkii la oran jiray Sa'd ibn Mu'aad ninkii la oran jiray Usayd ibn Hudayr halkaasi ayaa lagu islaamay ila islaamku uu noqday midka ugu badan magaalada Madiina hadaba saaxiibayaan mar kale ayaa isweydiiyeen nimankii ansaarta ahaayee Aws iyo Khazraj maxaynu rasuulka Allah uga tageynaa asagoo ku dhiban magaaladii Makka oo kufaar Quraysh dhaxdooda uu u jooga maynu rasuulka Allah soo wadano halkan keenno oo dacwadiisa aanu garab siino oo aanu dawladda islaamka halkan ka dhisno ayaga ayaa maartay arinta ay ka sheekaystay sida ay leeyihiin saxaabadii ka qayb galay bay'atul aqaba thaniya hadaba saaxiibayaal sanadii 13aad ee bicsada markii la gaaray ayaa waxa soo aaday magaaladii Makka wafdi aad u weyn oo 300 qof ku dhow oo hogaaminayo ninkii dib munaafiqa ka noqon doono ee la oran jiray Abdullah ibn Ubay ibn Salul 300 qof ku dhawaad soo hogaaminayo ayaa waxa ay soo aadeen halka iyo xajkii halkaasi ayaana yimaadeen dadkan waxa ku jiray wafdiga ee xajka soo aaday markan 75 ruux oo muslim ah 73 rag ah iyo 2 dumar waxana ay u yimaadeen markan inay beeca ay la galaan rasuulka oo ay la baayactamaan beecadani laakiin tii hore waa ay ka duwan tahay oo markan ma ahan beecatun nisaa ee waa beeca gacmaha la saarayo ayna ay ka dhalan karto waxa weeye in rag waaweyn maanta nooli ay aakhir aadaan hadaba saaxiibayaal markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam ay nimankii ay yimaadeen magaaladii Makka oo ay xajkii guteen ayaa rasuulka is arkeen waxaana lagu ballamay in ay ballamaan oo ay meel isugu yimaadaan deedna xogta la kala qaato kadibna wixii la isdhihi rabay la isdhaw nimankii kufaar Quraysh culayska ayay muslimiinta ku badiyeen waxaadna ka warqabtaan inay dacwadii cariiri ay geliyeen waxa weeye difaacitaankii nabiga la difaacayna oo yara waxa weeye adkaaday oo reer Bani Hashim وأبو طالب انتي وحاول حال كنا أصلا سهلني النبي صلى الله عليه وسلم مركن أسجع وحى ومجن وياي نلي هذا مطعم ابن عدي أيوة معناته ياهي جوار وياي ومجن وياي مطعم أيانا مجن قريو يري أنت ما كنت شوقه عد له هذا كرتم محمد ما يجرته هذا بس حبيال waxay ku ballameen saxaabadii 75 ka iyo nabigu in la sugu yimaado waadiga Aqaba agtiisa habeen barkii markii saacadu ay tagto maalmaha ugu dambeeyay ee xajka markii dadku ay gutaan ay dhameystaan oo ay kala rawaxaan oo ay tagaan maalmaha ugu dambeeya ee dadku idil ay baxaan oo ishu ay yar tahay ayaa la ballamay waliba xilli saq dhexe habeenimo ah 8 saac habeenimo iyo aagaas oo dadka dhan ay hurdayaan saxaabadii waxay leeyihiin maadaama aan wafdi badan oo reer Madiina oo halkan xaj u yimiday aanu la soconay 75 aan nahay inta kalena ay mushrikiin yihiin ayar marka xilligii
rasuulka aanu la ballanay la gaaray ayaanu istataabanay oo ahayar ayaan anagoo tilaabsanayno isqarinayno ayaa halkii rasuulka nagula ballamay ayaanu nimid deedna halkaasi ayaa waxaa ku kulmay rasuulka sal slam oo uu la socdo adeerkii Cabbaas oo markaa mushrik ah iyo Abubakar iyo Cali iyo waxa weeye saxaabadii 75 ayaa halkaa ku kulmay Cabbaas nabiga adeerkii maadaama uusan muslim ahayn nabiga sal slam waxa uu soo watay waa adeerkii kamana shakisano inuu arrintiisii wixiisa u faafinayo oo dadkii difaacayay ayaaba uu ku jira haddaba saaxiibayaal markii la kulmay waxaa hadlay nabiga adeerkii Cabbaas waxaana uu la hadlay nimankii ansaar ee waxa weeye halkan yimid waxaana uu ku yiri war nimankiinan Khasraj oo idhageysta inta badan reer Madiino qabiilka Madiino Aws iyo Khasraj markii carabta kala agtagaan Khasraj baa la iska dhahaa marka wuxuu yiri reer Khasraj oo idhageysta wiilka walaalkii dhalay Maxamed aha waa kan adinka ayuu idin doortay inuu idin raaco ayaa uu doortay waxaadna garanaysan halku anaga naga joogo waxaadna ogtihiin in dhowr iyo 10 sano oo halkan joogay Quraysh iyo cid kale oo Carbeed ku dhacdana la waayay anagu aanu xabadka u garaacnay oo reer Bani Haashim hadaan nahay inaan garabkiisa aanu ahayn wiilkanaga aan difaacaynay ayaad ka warqabtaan laakiin hadda adinka ayaa uu idin doortay nimayahow dhageysta haddaad wiilkayga aad difaaci doontaan oo naftiisa iyo diintiisa iyo waxa uu dadka ugu yeerayo aad garab siin doontaan adinka ayaa uu idin doortay haddii kale nimayo hadhow haddii aad waxa weeye aad cadowga u dhiibi doontaan ama aad garabkiisa ka bixi doontaan hadda rag buu haystaaye faraha ka qaada oo gacanta ka taaga oo ballan beena hayga qaadina deedna waxa istaagay saxaabi la yiraahdo Baraa ibn Macruur waxaana uu yiri warkaaga waynu maqalnay Cabbaasow rasuulka Allah waxaad u baahan tahay inaad naga hesho bal noo sheeg waxaad u baahan tahay inaad naga hesho oo aad naga rabto noo sheeg rasuulka Allah deedna rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa uu hadlay waxa uu yiri rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam waxaan idinka rabaa an tubaayuuni ala as-sam'i wat-taa'a fi al-makrahi wal-manshad والمنشط وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن لا تأخذكم في الله لومة لائم وأن تمنعوني وتنصروني مما تمنعون به أنفسكم وأولادكم وأزواجكم وحنا نكرر إن البيعي قادان وبلن أيدي قادان إن هذه مقليسان ووركي أديليسان في المنشط والمكره حالده markay iska sahlan tahay barwaaqo leeyahay iyo xalku markuu adag yahay oo dagaal iyo dhiig lagu jiraba waxaan kaloo idin rabaa bay'ad gula galiisaan inaad xoolaha bixi hadaan idin iraahdo aad bixinaysaan markaad xoolaha haysataan oo qani atiin iyo marka xalku idin ku adag yahay oo abaar daran ay jirto intaba inaad bixisaan ina macruufka aad amartaan munkarkana aad reebtaan inta kaliya miya may wala alla ta'khudakum fillahi lawmata la'im in diinta ilaahay waxa way mid canaanta iyo mid dagaal badan dagaalkiis أيضاً أغبقين أنت كلية ليس مجارين وأن تمنعوني وتنصروني إن هي اللسان عدو جنادي على لسان واحد نفتين إيه حاسسكين يا عرورتين أتكلم على لسان إن هذه على لسان أنتاس أيان ربع عنه ونشرت السنة يا أيوة رسولك الله صلى الله عليه وسلم كده مركي أنصاري أي تري رسولك الله محمد جربته واحد استاجي سحابي شليلة أنصارية وإحنا اللي يرى براء ابن معروف وإحنا رسولك الله إلهي بنكون نارتي وإحنا كا إلى علينا وإحنا نفتين يا عرورتين يا أولادنا يا دمر كان أينو كا إلى علينا أيانو كا إلى علينا إلهي بنكون نارتي رسولك الله وإحنا نهاي أهل حرب تدقال لما أيان نهاي أو aan lagu soo dhicin niman dagaalka wax ka yaqaan ayaan oo manihin dad sahlan oo fuliya maalinta xaaladu adag tahay dad dagaalama ayaan rasuulka Allah annaga ayaan wax walba oo nafteena ka ilaalinayno ayaan ka ilaalinayna waxaan nahay oo dagaalamo oo aan loo gelin warithnaha kaabiran an kaabir dagaalka iyo geesinimadana awiyal baan u leenahay awoowa ayaan ka soo dhaxalnay waligaayana nimankan waa fuliyana lama dhihino نلاقوما شاقينا فلينا رسولك الله نقول بايعتم وانا نقول بايعتمينا أرنت أتشاكتي إنك بدم مركي أودونين سحابي قاعدة تاكت أو بايع قالوا أو أنصارين أي بايع قشوا أيا واحد استاجي السحابي اللي يراهدو أبو الهيثم ابن أيهام مركا سوري مهلا يا أنصار والأنصار وكادية حال الدقدقيسان ليس مجاري صحابي قال وحول الله لرسولك الله وحول رسولك الله إن بيننا وبين رجال حبالا أنا يركلوا مدينة جوجو حكا يا نور حي بالله عهدي ميثاق وجد منك يهودا مجال مدينة دجنا أوصنا قلاء أي لجران خسرنا قلاء كلا أي لجرتو وحول قلاء مدينة جوجتو أيها بلان نور حيسا وإن لقاطعوها رجع بلان تودنا رسولك الله وانو جرينا مرة دان أديك كيسنوك صلوا وينو وقعنت أنو كجلينا وانو جرينا رجع أديك رسولك الله هدي إلهي كجوليو وأتجوليستو ما لقى يابا إن تريتك أدسكسو أدو أنا جرى عندك صوتك صاحب يال داودها عزيز كهاي داونا يو وحلقة يابا إن استيرادو خذ كان أصدق هذا بلان أيها كجرتو لكن صاحبي كان يوعى عبقري وحلقة يابا سووا حين وصل آمن سنين لكن أنصار إني كنت جري كران رجوحها مدحو ذاك صلي كران ونين كان مركز سولو ويسان ما أنت أدريك إن أدجيسان ضد قالنتان وعربو إذا أدجويسان وحلقة يابا إن مركز بريء وجوليستو وريت لك سجى ماذا أذين كانوا ذيك صوتك هل كأي منك عدو قاعد هذا مدينة فرين نوعاس ayaa rasuulku u soo bandhigaya si rasuulku jawaab cad uga bixiyo kadibna ansaari ay bay'ada u gasho ayada wax walba teedna rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii hadalka uu yiri Abu Haytham waxa uu yiri rasuulku intuu dhoole cadeeyay ayaa wuxuu yiri bal dam dhiig waa dhiig ansaari ana minkum wa antum minni anigu
adinka ayaan idin kamid ahay adinkuna aniga ayaad iga mid tihiin waa isla noolaanayna waanu isla dhimanaynaa noloshu waa noloshiina geeriduna waa geeridiina cadowgiina waa cadowgayga cadowgayguna waa cadowgiina anay adinku waxaanu nahay ul iyo diirkeed baan nahay waxa weeye meel aan kala jirnana ma jirto cid aan idinka doorsanayana ma ay jirto arrinkaa markuu nabigu sal slam uu yidhi ansaarina ay aad u faraxday na ay damacdayna beecada gasho oo gacanta ay soo taaganayso ayaa mar kale waxaa istaagay saxaabi kaloo la yidhahdo cabaas ibnu cubaada waxaana uu yidhi mahlan ya ansaar war ansaar isdejiya xaggee la degdegaysaan meeshan wax lagu degdegaya ma yaalaan ma garanaysaa ninkan waxaad kula baayactamaysaan buuri nimanyo innakum tubaayicuunahu calaa xarbi alaxmari waalaswad war ninkan waxaad beeca kula gelaysaan oo aad gacanta ku gelinaysaan waxa weeye inaad la dagaalantaan waaye adduunkii oo dhan calaa xarbi alaxmari waalaswad inaad mid madow iyo mid cad addoon iyo xur aad kula dagaalantaan weeye ninkan waxaad gacanta ku gelinaysaan warnimayo iska fiirsada وعلى مفارقة العرب يا عرب ودن إن la gooyo way arinka adinka gacanta ku gelinaysan war wax hubsada aan saaray biri san uma maleynaynin ha oranina maanta ayaa arintu waxa weeye arinta adinku arinka ogninka waxa weeye bay'ada siiya wa ajrukum ala allah ajirkiina allah ayuu saaray oo sida ku qaata hadii kala soo maan daaya oo farta ka qaada haddaba rag buu haystaa halka ayuu joogaa teedna saxaabigii ayaa war naga tagniyahow anagu waad garanaysaa dagaal iyo dad looga sheekeeyo manihin dad la cabsiyana manihin carab iyo waxaad sheegaysana agta ayaanu maranaynaa aanu قادنا رسولك الله نقلع سدا أي صاحب كل بيعة من رسولك الله صلى الله عليه وسلم أنصاري قعنتنا أيانا إجليين لما أنتوا تسدح أي طلباتك الرجعة لما أنتوا قعنت أيا إجليين بيعة سلوية قانو بيعة الحرب أيانا رسولك صلى الله عليه وسلم وكقاضي بيعة هو واحد هاد بيعة لوية قانو بيعة النساء وواحد يقول لي سي شخص مسلم كروح أنتي أيا يقول لي سي لكن مركان بيعة أيدا وبيعة يقول لي سي الدولة دي إسلام وواحد ربنا من كان إني اللي بدي ونقضان دولة اللي الدون أو مسلمين أو أني أدو ما أنت سببت أنه مسلم كنا هذا بس أحب يا هالكاسي أيا رسول صلى الله عليه وسلم وحقق بيعة العقبة الثانية بيعة اللبات عقبة كذا على سدح تضباطا وحوي رجع يلبط دمر أيا وحوي بيعة كوجل هالكاس رسولكنا لبط دمر كبيعة وكقاضي قعنتنا مؤسن جلد هذا بس بيال سداسي أيا رجاسي واحد يكون نقدين رج دبر كأوريتا مسلمين تيو إدل الدولة دي مسلمين تأردن مجال المدينة أيا يكون صلابتين كده رسول بنو صلى الله عليه وسلم وحو أمري إن له هجرة وحوي مجالدي مدينة أهات وهلك إلا هذا لما أن المسلمين هالكاس أي مرة سي قرصودية أي كل أسوة هجرودن ومجالات المدينة أي لما أنت تسوق أذن سي قرصودية إلا هل المركز الجريبة أو اللي بح عليها كاسوق اللي حستاجي مجالات مكة نالله هذلي نمك كفار قريش وعربتها هنيري من مغليسان يا أبناء الكفار قريش من مغليسان وحنا هاي عمر بن الخطاب نكاد جرانيسان وأنا هجروني يا هجرة أيان أصعد مدينة أيان أصعد روحي دوني إن حاسكي سوء جرام نقطة هو يدين أي قبلنته عنو جيسن وأقول نقطة هاي قد بيجي وحوي بورتن كذا شيء نكا كلية أي هجري إعلامية أنت كلو صحابة لمان سلوا مشاء أي هالكاسي مجال المدينة أي وذا قبتين وهالكاسي يلو ذا هجروا هذا صاحب بيال بيعدس أيام ربنا ما أنت كعشة كيو بيعة العقبة الأولى والثانية هي سيدنا منكي وحوي أنصاري أي دين الإسلام كأي النبي محمد هي مسلمين تيو إذل أي دبرك أي أسرتين مسلمين ترى أسر ويين وحوي أيام كعشة كي وسيدي إلهي كوير من كاسي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هبقى جودان أو هبقى رفعتنا هذا مسلمين تأي الدين يسلوين تودي أي وحول بأورين رجاسي إلا يمانتنا قدرين أي إنك مدين غير مدينة وأنا صوبتي كانتي نبي الله محمد إنه أدعي ما لما المحكمة وكير هذا اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار ده صاحب بيال هلك أيام كسر جبني يا مقال كان كوبان أنا واحد ليني بعد رسول صلى الله عليه وسلم الله قال غير مدينة سببنا وهذا رسول صلى الله عليه وسلم إنه كيجرو ده مجال مكة ومدينة وجور وهلك سي دولة دي سوكا أساسه هذا هلك أنا لسه جارتي أد بعض ما سنتهي ده وش المقال كده وأنت جنك هو عصبية تاجر سبسكرايب وقبو لايك تنصار أنا بخيل الملدر بمقال كجرسينيسا صاحب كان له ذاك أد بعض ما سنتهي رأيك وانو مهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد ونكسب